دخلكي عالغال وهلا بجري بدي لومين سوهلي لها وابتدان هايين يقورا مرهدان وهلي أفكرو يهو بنيقاديو وقري هقان بنيقاديو وقري هقان جاهل نمو حداين جاهل نمو حداين هو قلنقا وهقاتي بوقا هو قلنقا وهقاتي بوقا ماذا هو دلمانتين هو دلمانتين ما دوي من المنتا حقلا ميران ويان مدح لبدريان ليو مجا صدح عليها نقضوا وين نغنقطها صدح نبر إصلاحتها وأدو حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ميل والبودافع عالم كجوكتان ولكن فؤاد قبيلة ديد برامجكم وبرامج جعل دعاء بوين إدمو أنا باللعبو تدواد والبن إن شاء الله أنا لسه عنه وأنا برامجكم فكوسة بسني هاي قاموسك أفكا سوماليكا سو صدقك وحلوق مشغولي قبيلة وحلوق مشغولي دجال غير هبل بلايو سوشيال ميديا سيدي وعنا وقف أيدي سنة لهن تتبع قصي marka waxaad ka codsanaya kaliya inaad share gareysaan qaamuuskeena afka Soomaaliga isku mashquulinayna asxaabta khadka fiberka iyo WhatsAppka iyo barnaamijka uga qayb qaadan karaan barnaamijku intuu socdo waxaan uga hadli doonaa dhan waa qaamuuska afka Soomaaliga waxaan rajaynayaa inaad si toos ula socotaan buugga qaamuuskeena afka Soomaaliga ayaynu baran doonaa waxaanu ka faa'iidi doonaa ereyo badan oo cusub oo afkaaga Soomaaliga aad ku kaban doonto meel walba dunida ka joogtaana kuwa qabiilada faafinaya qurunka ka sheekeynaya reehebel hawiye iyo daarood iyo dil iyo oday dhintay ummadda ku kala dilaya waxooda waa sheer gareysaan hawada gelisaan caawa wax kale kama rabo kaliya 200 oo sheer ina gaarsiisaan walaalaha Soomaaliyeedna saan qabiilada uga mashquulino kuwa qabiilada faafinaya maxaan ku dhahdaa raadiyo cadaali iyo bum iyo maxaan ku dhahaa الهبلي iyo la baxay si aynu meel u saarno oo aynu u tusno waxooda wax ka fiican inaynu sameyn karno barnaamijku waa live sidoo qof ay si toos u daawanaysa sidoo qof ay daawanaysa waxa ka codsanayaa sideediina walaalyaana si share gareysaan meel walba oo dunida ka joogtaan waa walaalkeen Fuad Qabiiladiid barnaamijkuna waa barashada qaamuuska afka Soomaaliga naxajana barnaamijka inaynu u guda galno halkan ay imika joogo waa buuggii qaamuuskii ayaa ku guda jira marka waxaan jeclahay qaamuuska marka hore yaa qoray qaamuuskan waxaa iska kaashaday nin Talyaani ah iyo professor macallin waa Anarita Bulugileli iyo Abdullah Umar Mansour oo ah professor Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga aad iyo aad ugu xeel dheer buugaaga dhowrana qoray ayaa qaamuuskan diyaariyay waa qaamuuskii ugu dambeeyay ee la diyaariyo waxaana la qoray waa sanadkii 2012 marka qaamuuska ayaynu guda galeynaa qaamuuska afka Soomaaliga Abdullah Mansour ayaa diyaariyay marka maxay celinta iyo tafatirida waa inuu ka gudbi doonaa tusmada buugga marka wuxuu ka kooban yahay Google Dig oo looga hadlayo buugga waa qaamuuska ereyada la isku gaabiyay qaamuuska naxwaha afka Soomaaliga oo kooban ayuu ka hadli doonaa sidoo kale iyo shaxanada hoos aan soconna marka kale hada usloor gareenaya hoos ayaan soconaynaa si aynu dabcan aan u akhrino okay Google Dig qaamuusku waa kana marka qaamuusku waa mirihii hawl adag oo muddo dheer soo socotay inuu muddadaas dheer qaato waxa ugu wacan maadaama uu qayb ka ahaa sababihii loo sameeyay mashruuca cilmi baarista Soomaaliyeed waa Story Somali waxaa howlgalkiisa bilaabmay kadib markii la soo saaray sanadkii 1985
asxaabta nagu soo biirtay waxaan ka hadlaynaa waa qaamuuska afka soomaaliga. wax badan ayaa ka faa'iidi doontaan. fadlan sii sheergareeya walaalayaal. wuxuu bilaabmay kadib markii lasoo saaray sanadkii 1985 qaamuuska Soomaali Talyaani ayuu kusoo baxay. waxaa qoray xilligaas waa Agostini Bugleyli iyo Ciise Maxamed Siyaad. Diccionario Somalo Italiano Roma ayaa lagu qoray 1985. sababta ay howshiisu u adkaatayna waxay ahayd iyada oo bilowgii dagaalka sokeeye ee 1991 uu caqabad ku noqday sii wadida howshii qiimaha lahayd ee lagu qabtay akademiyadii fanka, suugaanta iyo sayniska ee Muqdisho. waxaase nasiib wanaag ah in dalka Talyaaniga ay yeeleen nuquladii macluumaadkaas oo laga shaqeynayay ilaa muddadaas, inkastoo qayb ka mid ah oo aan nuqulkooda lahaynin ay ku baaba'een Soomaaliya. intooda badani way badbaadeen. joogsiga mashruuca iskaashiga Soomaaliya Itaaliya iyo burburka ku dhacay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed iyo akademiyadii sida hay-adaha kale ee qaranka iyo guud ahaan xaaladihii colaadeed ee dalka ka jiray waxay sababeen inay dib u habeen xoog leh lagu sameeyo mashruuca qaamuuska. arrintan iyada ah dhowr jeer ayaan horay uga faaloonay ayuu leeyahay oo 1995 ayay ka faaloodeen 2009 sidoo kale. waxaana suurto geli weyday in waxyaabo aan ku taamaynay inaan si fiican ugu falanqeyno qaybo gaar ah sida ereyada, farsamada, aqoonta, dhirta iyo xoolaha iyo kuwo kale. sidaas ay tahay arrimahaas nagama horjoogsanin dhamaystirka hab daabacadda qaamuuskan oo ammaanta soo bandhigeen. marka hoos u socdo intaas waa gundhigii intaas noogu filan. haddaba halkan waxaan gelaynaa halkaana kala ugu fiican taariikh kooban oo ku saabsan qaamuuska. ereyada asaasiga ah ee lagu bilaabay qaamuuska waxay ahaayeen ereyada qaamuuska Soomaali Talyaani oo la daabacay sanadkii 1985. ereyadaas tiradoodu waxay ahaayeen qiyaastii 30,000 oo laga soo xulay baaris lagu sameeyay qaamuusyadii markaa jiray oo idil oo ay ku saabsanaayeen af Soomaaliga oo lagu turjumay af kale laga bilaabo midkii Renich uu sameeyay sanadkii 1902. fiiriya 1902 Soomaaliya qaamuus lahayd. markaasa taariikhdaas waxba war ugama hayn. iyo qaamuuska kaliya ee hal af ku qoran ee markaas jiray oo ah midkii Yaasiin Cusmaan Kennedy uu qoray oo qiyaastii ka koobnaa 15,000 arag. intaa waxaa sii dheer ereyadii raalli ahaada